madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo soo dhawaada kusoo dhawaada degmada Cadaado kusoo dhawaada xarunta tababarka ciidanka booliiska ee degmada Cadaado waxaan kaga mahad celinaynaa dhimaashada iyo soo booqashada xiradan aad soo booqateen iyo furitaanka ciidamadan dafcadii ugu horeysay ee tababarka loogu sameeyo degmada Cadaado ayaan idinku soo dhaweynaynaa waxaan idinkaga mahad celinaynaa in aad markii ugu horeysay degmada Cadaado ay nasiib u yeelato in lagu tababaro ciidanka booliiska oo xarun tababar laga daafuro saakay aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad noogu timaadid tababarkana aad noo furtid mudana madaxweyne runtii maanta galmudug waxay u tahay maalin weyn annaga oo hanaankii dimuqraadiyadda qaadanay iyadoo ciidamadeedii tababaranaysa amniga ma aan loo kala marayn saraakiishii iyo madaxdii galmudugba madaxweyne intaasaan kugu soo dhawaynaynaa waad mahadsanta mudan madaxweyne maantay waa maalin farxadeed waxaa noo diyaaray ciidankii booliiska galmudug oo la raba in maantay akademiyada booliiska galmudug ee Cadaado lagu daafuro tiro 400 oo askari oo hordhaca ayaa maanta meeshan kugu diyaaray iyo macallimiintoodii oo soo dhaweynaynaa adiga iyo wafdiga kula socda madaxweyne maanta farxad ayay noo tahay ka wasaarad ahaan iyo galmudug ahaan dufcaddii ugu horreysay oo ciidan booliis oo galmudug uu yeesho ayaa maanta rabnaa inaad daha ka qaaddo oo aad noo furto madaxweyne muddadii halkan aan joognay oo ciidanka aan qoraynay ciidanka waxaa ka mid noqday rag oo ay ka mid yihiin dhallinyaro u badan hubkoodii wata boosashkoodii wata waxay diyaar u yihiin tababar waxay diyaar u yihiin difaaca dalkooda waxay diyaar u yihiin wax walba oo awaamiir ah ee la siiyo madaxweyne dadkaas ama ciidankaas waxaa ka soo dhexbaxay aqoon-yahanno oo ay ku jiraan naarsis dad aqoon leh iyo dad sawirqaade ah uu ka mid yahay wiilkaas waa ciidanku ka mid yahay waxaan ka helnay kaamirabaanaan ka helnay dhakhaatiiraan ka helnay rag badanaan ka helnay meesha marka waa ciidan isku aadan waxaa farxad noo ah madaxweyne macallimiintii oo tababaraysay oo ah macallimiinta ugu sarreysay aqoontoodii hadday noqoto maadiga iyo diinta intaba ka dhisan macallimiinta waxay u kala baxaan kuwa garoonka iyo kuwa cashirada bixinayo labada qayboodba way ku dhan yihiin madaxweyne waxaan rabnaa inaad maanta noo daafurto inaan kugu soo dhoweeyo waxaan marka hore u mahad celinayaa saraakiishii iyo mas-uuliyiintii u xil saarnaa tababarka dugsigan ee soo qabaqaabiyey ee soo diyaariyey ciidankan quruxda badan ee halkan tababarka uga furmayo sida ay waajibaadkooda u guteen sida ay u soo xuleen dhallinyaro loo tababarayo ciidanka booliiska galmudug waxaan sidoo kale halkaan uga mahad celinayaa ciidanka u soo diyaar garoobay inay tababarkan halkan looga furo dalkoodii dadkooda u shaqeeyaan waxaan leeyahay runtii markaan intaas mahadcelinta uga baxo maanta waxay noo tahay maalin weyn aan halkaan ku daahfurayno waa tiradii ugu ballaarneed waa tiradii ugu badneed ee tababarkooda si dhammaystiran halkan in looga furo loo soo diyaariyey waxaad u tababaranaysaan dal aad og tihiin inay ka jirto argagaxiso la rabo inaad argagixisada dadkiina ka nabadgelisaan dhibaatadooda inaad aqoon u yeelataan dhagartooda iyo dhibaatadooda inaad aqoon u yeelataan kuwa wax kasta oo dhibaya shacabka inaad barataan sida loo qabto iyadoo la dhowrayo shuruucda iyo nidaamka wax lagu qabanayo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa wakhtigii loo asteeyey inaad tababarkiina si hufan u dhammaysataan markaad tababarkiina dhammaysataanna aad ka gudataan
aad gudataan waajibaadkiinnii ciidanka booliiska galmudug saraakiisha iyo ciidamada sharafta leh dugsigii tababarka ee ciidankaani dafcadii maantay koowaad aan ku bilownay waa noo furan yahay tababarkana waxaan rajaynayaa inuu guul nagu soo dhammaado insha allahu tacaala